Sergey Brin sheekada ninkii la aasaasay Google ee beddelay dunida. Ma isweydiisay qofka ka dambeeya Google oo ah shirkadda ay maalin kasta isticmaalaan balaayiin qof? Inta badan dadka waxay maqlaan magaca Google laakiin ma yaqaanaan sheekada cajiibka ah ee Sergey Brin. Ninkan wuxuu ka soo qaxay dalkiisii isagoo 6 jir ah, wuxuuna qoyskiisa ula guuray Maraykanka si ay u helaan nolol iyo fursado wanaagsan. Sannado badan kadib, isaga iyo saaxiibkiis Larry Page waxay abuureen Google, shirkad beddeshay habka dunidu u hesho macluumaadka. Muuqaalkan waxaan ku ogaan doonaa carruurnimadiisii, waxbarashadiisii, halgankiisii, guulihii uu gaaray, iyo sida uu u noqday mid ka mid ah dadka ugu taajirsan dunida. Carruurnimadii Sergey Brin. Sergey Brin wuxuu dhashay 2 Agoosto 1973 magaalada Moscow ee dalka Ruushka oo markaas ka tirsanaa Midowgii Sofiyeeti. Qoyskiisu waxay ahaayeen dad aqoon leh. Aabihii wuxuu ahaa bare cilmiga xisaabta, halka hooyadiis ay ka shaqayn jirtay cilmi baarista. Laakiin noloshu ma ahayn mid sahlan. Wakhtigaas dadka Yuhuudda ah waxay la kulmi jireen takoor iyo xanibaado badan. Aabihii Sergey waxaa laga hor istaagay inuu sii wato shaqooyinkii uu jeclaa sababo la xiriira diintiisa. Markii Sergey jiray 6 sano, qoyskiisu waxay go'aansadeen inay ka guuraan Ruushka una haajiraan Maraykanka. Go'aankaas ayaa beddelay noloshooda. Nolosha cusub ee Maraykanka. Markii ay yimaadeen Maraykanka, wax walba way ka duwanaayeen. Luqad cusub, dhaqan cusub, saaxiibo cusub. Laakiin Sergey wuxuu ahaa wiil aad u jecel waxbarashada. Wuxuu si gaar ah u jeclaa xisaabta iyo kombiyuutarka. Aabihii ayaa ku dhiirigelin jiray inuu barto barnaamijyada kombiyuutarka isagoo weli yar. Taasi waxay noqotay saldhigii mustaqbalkiisa. Waxbarashadiisii. Sergey wuxuu galay jaamacadda Maryland isagoo bartay Computer Science iyo Mathematics. Wuxuu ahaa arday aad u firfircoon. Macallimiintiisu waxay si degdeg ah u ogaadeen inuu leeyahay maskax aan caadi ahayn. Kadib wuxuu u gudbay jaamacadda Stanford si uu halkaas uga sii wato waxbarashada. Mana uusan ogeyn in halkaas uu kula kulmi doono qof beddeli doona noloshiisa. La kulankii Larry Page. Sanadkii 1995 ayuu Sergey Brin la kulmay Larry Page. Bilowgii labadoodu way isku khilaafi jireen dood kasta. Qof walba wuxuu difaaci jiray fikirkiisa. Laakiin doodahaas waxay markii dambe isu beddeleen iskaashi. Waxay ogaadeen inay wadaagaan hal himilo. Inay internetka ka dhigaan meel dadka si fudud uga heli karaan xogta saxda ah. Mashruuca Backrub. Markii internetku sii fidayay, raadinta xogtu aad bay u adkayd. Waxaa jiray makiinado raadin badan laakiin natiijooyinkoodu ma ahayn kuwa sax ah. Larry iyo Sergey waxay bilaabeen mashruuc ay ugu yeereen Backrub. Mashruucu wuxuu qiimayn jiray bogagga internetka iyadoo lagu salaynayo xiriirada bogagga kale. Tani waxay ahayd fikrad cusub oo aan hore loo isticmaalin. Waxayna noqotay saldhigga Google. Dhalashadii Google. Sanadkii 1998 ayay si rasmi ah u aasaaseen Google. Waxay ka shaqaynayeen garaash yar oo California ku yaal. Qalabkoodu ma ahayn mid qaali ah. Xafiiskooduna aad buu u yaraa. Laakiin waxay lahaayeen hal shay oo ka weyn wax kasta. Riyo. Maalgeliyihii ugu horreeyey ayaa siiyey jeeg dhan $1 oo dollar. Lacagtaas ayaa ka caawisay inay shirkadda bilaabaan. Koritaankii Google. Muddo yar gudaheed Google wuxuu noqday mashiinka raadinta ugu fiican. Dadku waxay jeclaadeen xawaaraha iyo saxnaanta natiijooyinka. Maalin kasta malaayiin qof ayaa bilaabay isticmaalka Google. Shirkaddu si xawli ah ayay u kortay. Waxayna shaqaalaysiisay 100 qof. Kadibna kumanaan qof. Adeegyadii Google. Google kuma ekaan raadinta internetka. Waxay abuureen Gmail. Waxay sameeyeen Google Maps. Waxay iibsadeen YouTube. Waxay sameeyeen Android. Waxay soo saareen Google Chrome. Wax kasta oo maanta dadku isticmaalaan internetka, Google door weyn ayuu ku leeyahay. Maanta Google waa qayb ka mid ah nolosha dadka adduunka oo dhan. Mar kasta oo aad wax internetka ka raadiso, aad isticmaasho Gmail, YouTube, Google Maps ama Android, waxaad ka faa'iidaysanaysaa hal abuurkii Sergey Brin iyo Larry Page. Sheekada Sergey Brin waxay caddaynaysaa in qof ka soo qaxay dalkiisii isagoo yar uu noqon karo mid beddela dunida oo dhan. Haddii aad ka heshay muuqaalkan, fadlan like saar, subscribe samee kana tag faallo adigoo sheegaya qofka taariikhdiisa aad rabto inaan muuqaalka xiga ka samayno. Mahadsanidin ilaa muuqaal kale.